الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه وحبيبه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. عباد الله، walaalayaal waxaynu isxusuusinaynaa khudbadan mowduuc la xidhiidha kii kan ka horeeya aynu ka soo hadalnay oo ahaa dhimashada iyo geerida. xilka qofka saarani waa inuu diyaar garoobo dhimashada. waa dariiq la wada marayo oo aan la horaynin, lama hurayo, waa lagu kala horeeyaa. marka kanina waa sidaaba aad ugu diyaar garoobayso geerida, oo ah inuu qofku dardaarankiisa qoro, ama ha yaraado ama ha weynaado, madax ha ahaado, maal qabeen, midku doonaya ha ahaado dadka. siyaabahaynu uga hadlaynaa waxa weeyaan inaynu tilmaanno ahamiyadda ama mudnaantuu baabkani leeyahay in la qoro dardaaranka iyo qaybaha dardaaranku leeyahay, faa'iidooyinka ku jira, iyo tusaale aynu ka bixinno sida loo qoro. intaasoo kooban waxaa ka sii horeeya intaa dadka iyo siday u qabaan qoraalka dardaaranka. dadkeennu waxay u qabaan wakhtiga la dardaarmayaa inuu yahay markuu qofku sakaraadku hayo. sidaa daraaddeed baa nin sii dhimanayaa waxaa la yidhi hebelow dardaaran. wuu ka warwareegay markaa wuxuu leeyahay bal horta ha soo dhawaato ii kaadiya, horta ha soo dhawaato, ha igu soo dadejinina. dardaarankanowna waa wixii muhiim ee murtiyeysan oo wakhti aada miyir qabtaad caadita aada meel ku tiirisaad iska qorto. arrimo dhowraa muhiim ka dhigaya dardaaranka inaynu qorno. ta u horreysaa waxa weeye aragtidaa dadkeennu uu ka qabo in loo sheego qofka hadduu dardaaranka qoro inaanay geeridu kusoo degdegayn ama aanu hore u dhimanayn. laakiin waa wax lama huraanood hore isaga yeeshay. midda labaad oo ah geeridii oo dee badatay, oo ehelkii iyo asxaabtii iyo ummaddii intee jinaasad lasii wadaa, weliba ayaamaha safmarku jiro. hebelaad taqaanay, midaad maqashay, mid aanad maqal, dadkii waa laguu sheegaya, ambalaasunbaa isweydaaranaya. wax xaqiiqo jirta wey. liiska innaguna waynu ku jirnaa, gooruu noqonna war kama hayno. lagumana cayimin wakhtiga aad dhimanayso. haddii aad dardaaranka hore u qari weydana inaad kari weydaabaaba laga yaabo, fursad u weydo. ilaahay baa wuxuu ihi markuu ka warramayay dadkaa lagu soo kadinaya geerida, falaa yastadiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun. ma kari doonaan inay dardaarmaan, xaafadoodiina uma noqonayaan. waxaa laga yaabaa inuu buxuu soo noqon waayaba. waxaa ku luma deymaha. qofkana inta dayn lagu leeyahay darajadiisa ma gaadha buu ku caddeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah. dayntana waxaa ka mida daynta xaaska iyo ganacsiga dadku idinka dhexeeyo inu fudaydsanno. waxyaabaha muhiim ka dhigaya waxaa ka mid a qofkii maalqabeenka waxaa laga yaabaa inuu ka faa'iidaysan kari waayo maalkiisii, oo hadhowto tabaruc iyo deeq iyo waqaf uu bixin lahaa ay saa ku dhaafaan. kuwii dhexlayna ay u joojin waayaan. xoolihiisii uu gacanta ku hayay uu ka calaf seego. waxaa muhiim ka dhigaya xuquuq badan baa ku lunta dardaaran la-aanta. oo ama qofku waxyaaba u ammaano u haye ah, ama isagaba ka maqnaa cid uu shuraako kula ahaa, ama isaguba uu amaahday ama cid laga amaahday. wax badan bayna saaraan weliba dadka acyaanta ah iyo maalqabeenta iyo mas-uuliyiinta. maalin dhaweyd baa nin sheekhi wuxuu ii sheegaya ruux dumaro keliya sacuudiga joogta ayaa nin waxay amaahisay 500 kun oo riyaal. walaa istiridee kana ehelkaaga ah ku qarso. u geeriyooday. markay warkii sheegtay waxa la maxaa kala qorateen yaa ka markhaatiha annagii ilaahun bay sugayn bay tii
ubadna kama tegin adduunna kama tegin intaas way ku baxday maa lagaga bixiyaana ma jiro ehel ka bixinayaana ma jiro oo boqoliyo waa lacag intee la eg 500 kun oo riyaal wax la yaab badan weey qofkaasi dee murugu iyo ciilun buu la fadhiyayaa waana ku adkaan kartaa xoolaha intaa lag inuu cafiyaa waxyaabahaas oo dhan waxay ku imanayaan dardaaranka la fudaydsanayo waxyaabaha muhiim ka dhigaya waxaa ka mid a waa dhaqankii rususha oo nebiyada uu khatimay rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo dadkeenii saalixiinta iyo salafkii dardaarankaasay lahaayeen oo qof walba waa u qornaan jiray dardaarankiisu aayaadka aynu akhrinay baa tilmaamaya wasaa bihaa ibraahiimu baniihi wa yacquub yaa baniya ina allaha istafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waa ambiyadiis dhalay nebi ibraahim iyo yacquub iyo awlaaddoodiiba u dardaarmayaan duuyo mayhayna diinta ilaahaysay dadka u gaadhsiin lahayen ugu dadaali lahaayeen cabdillaahi ibnu cumar waxa uu leeyahay xadiidkaa markaa nebiga ka maqlay sheegaya qofku dardaarankiisa ha qoro wuu ii qornaan jiray buu may dhacaynin inuu dardaarankaygu qoraalla-an noqdo markaynu intaa kaga nimaadno waxyaabaha muhiim ka dhigaya casrigan aynu joogno iyo mar walba in buugaad leedahay uu kugu qoran yahay dardaarankaasi oo awlaadaada aada ku rabayso ehelku og yahay oo aad tidhaahdo aabba ama ooridaadii aada la hadashaad tidha haddaan qoro dhiman laguma dhinto ma soo qadinto dardaaranka oo la qoraaye la socda xaaladayda waa caynka marka wax isbedelaana aad ka masaxdaad dib u saxdo tacdiil ku samayso waxaa jira dardaaran qaybuu leeyahay mid xaaraana iyo mid waajiba iyo mid sunno ah dardaaranka waajibkaa waxaa ka mid a qofku hadduu og yahay xuquuq waajiba in lagu leeyahy waa inu qoraa dardaarmaa markhaatiya u sameeya ilaahay baa xuquuq ku leh waa sekadii waa xajkii waa nadarkii waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin iyo kafaarooyinkii kafaara gudkii waajibka ahaa arrimahaasaa laygu leeyahay ogaada hadduu bixiyana waa fiicanto inuu degdego wey mar walba mar hadduu waajib yahay shaygu haddii kalena waa inu xusaa waxaa ka mid a xuquuqday dadku ku leeyihiin ama isagu cid ku leeyahay waxba yuu qarinina dadkii dee dhaxli lahaa kala wareegi lahaa ha dhowto ila waa ammaanahaye ha isaga sii sheego waxaynu qarinaabaa laynagu salido o inagu badane sunnay noqonaysaa ama wasiyadaasi ama dardaarankaasi uu noqonayaa markaanay arrimaha waajibka ahayn ee uu qofku doonaya wax tabaruca inuu bixiyo laakiin laba shardi unbaa loo dhigayaa tabaruca dardaaranka uu qofku dardaarmayo maal sunnaa ama sadaqo ama deeq waa laba shardi ayaa u yaalla si a u ansaxdo wasiyada ama dardaarankaas idi waxa wey inaanu thuluth ka badinin xoolihiisa wixii uu bixinayo ama cid ha siiya ama waqafa ka dhigo athuluthu wa thuluthu kathiir rasuulku sala allahu calayhi wasalam sacad wuxuu ku yihi thuluthkaa laftiisaaba badan marka cabdillaahi ibnu cabaas wuxuu lahaa waxaan jecelay in thuluthka laga yareeyo oo rubuc iyo meelaha laga dhigo qofku xoolihiisa wixii u dardaarmaya shardiga labaadna waxa weeya inaanu dhaxlayaasha qof ka mida dardaaran u qorin waayo rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarid wardadii u dhaxlayaasha qof walba ilaahay xaqiisii buu siiyey qofku dardaaran iyo iskuma darsanaya dhaxal dardaaranku mar buu noqdaa xaraam xaaladaasina waxa weeye wax diindaraa buu qofku dadka u dardaarmo wuxuu leeyahy inaan nin weynahay si loo ogaado oo aanan u libdhin aanan u qarsoomin iisoo baroorta oo iisoo ooya oo kaa yeela oo miyuusigaa tuma oo waxaa laydharhkaa sameeya oo durbaanadaa garaaca wax wada munkar ah arrintaasi khatarteeday leedahay waana xaraam waana kuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii loo baroorto qofka dhintay in lagu cadaabayo qabriga waa markuu ogaa ee uu daayey ama isaguba u dardaaray janafku ilaahay sheegay weeye faman khaafa min muusin janafan aw ihman faaslaxa baynahum falaa ihma calayhi ina allaha gafuuru raxiim qof sii dardaarmaya haddii qof ogaado inuu leexanayo sharciga ka leexanayo kadibna uu toosiyo islaaxiyo ama wixiiba qariyo dhib ma jiro ama qofkani
dadku isku diraya nabar baa ku dhacay wuxuu leeyahay waxaan u dhimanayaa kii hebel umana dhimanayo ee waa cadhow kaa u qaba daraaddeed ama hebel buu doonaya inuu wax siiyey iyo heblaayo wuxuu leeyahay waan ka iibiyey waa kuwii dhexlayaashaa mid ka mid a ama wuxuu leeyahay dayntaasi ugu lahaa kumaba lahaba ama xaaskiisii oonu meherkiisii nin buu leeyahay waan siiyey adugu wax dee sharci darro ah ama dafiraada ama isku dira taana cidda maqashaano soo gudbin maysa hadduu xaqiiqadeeda og yahay waana xaaraamkaasi marka qofku waa inuu iska ilaaliyaa ayaamihiisa ama saacadihiisa waktigii u dambeeyey inuu adduunka foolxumo kaga ambabaxo saddexdaa qaybood buu noqdaa dardaaranku faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah alajru alcadiim liman katabahaa jazaan daacatan lilaahi wa rasuulih qofku markuu qorayo kol hadduu ilaahay rasuulka adeecayo amarkii qaatay macnaheedu waxa weeyaan inuu abaalmarin leyle sharcigii buu raacay faa'iidooyinka waxaa ka mid a fursad buu dee helayaayo qofkii waxaanu imika bixinin baa markuu dardaarankii qoro hadhow la bixinaya dhaxalkii laga jaraya sida qur-aanka ilaahay uu ku caddeeyey oo dayntii iyo dardaaranka dhaxalka ka horeeya waxaa ka mid a fawaa'idka ibraa'u dimmati min almukhaalafaati alsharciyati walxuquuqi almaaliya wixii sharciga uu ku khilaafi lahaa ayuu iska safaynayaa oo uu iska reebayaa dumadiisana wuu beri yeelayaa uu isbaraxayaa wixii aakhiro loo qabsan laha buu adduunka iska safaynaya iyo ta afraad oo qadcu nisaacaati almuxtamala muran ay dadku geli lahaayeen buu kala reebayaa oo had iyo jeer dee waalidkiibaa waxaa ku lahaa waan u qabsanayaa maya waan siiyey waxaasoo dhan waxay ku harhayaan qoraal markuu sameeyo iyo caddaymo waxaa kaloo iyadana laga yaabaa in lagu intifaaco dardaarankiisa oo qofku saacadaha uu sii dhimanayo dadka isjecelyiin ehelkiisa iyo axbaabta wixii u sheego way guntadaan aabbahay baa igu dardaaray awowgay baa igu dardaaray qaar baa yidha ayeyday baa igu dardaartay warkaa dabeedna qofku dhaqankiisu ku darsanaya marka hadduu dadnimo wanaagsan iyo diin qofkaa u dardaarmo ehelkoo tii la qabsado la raaco dee waa wax wanaagsan oo miisaanka xasanaadka ilaahay u saaraya ciddii kaga dayata faa'iidooyinkaasoo dhan baa ku jira habka loo qorayo dardaaranka waa inuu qofku ugu horreyn ilaahay ammaana subxaanahu wa tacaala nebigana ku salliya sala allahu calayhi wasalam ciddan dardaaranka qoraysana inuu isaga yahay magaciisoo saddexan waa inuu qoro towxiidkana waa inuu ku qoraa hadihi wasiyatu fulaan ibnu fulaan wa huwa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh wa ana ciisa cabdullaahi warasuuluhu wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam wa ruuxun minhu wa ana aljannata xaqu wannaara xaq wasaacata laa rayba fiiha wa ana allaha yabcahu man fi lqubuur tamhiidka iyo gogoldhigaa markuu soo sameeyo waxa uu leeyahay carruurtayda waxaan u dardaarmaya ehelkayga iyo aqaaribtayda iyo ummadda islaamka oo dhan alla ka cabsi inay ilaahay ka cabsadaan subxaanahu wa tacaala iyo dardaarankii nebi ibraahim inamadiisa u dardaarmay wawsaa bihaa ibraahiimu baniihi wa yacquub nebi ibraahim iyo yacquub inamadoodii waxay u dardaarmeen diinta islaamka iyo in la qabsado lagu adkaado in allaha astafaa lakum diina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay diin buu dad yow idiin doortay ku dheganaada dardaaranka ay bixiye banana idiin dardaarmaya waa diin baa u horeeya markaa waa arrinta ugu muhiimsan wey taa dadku inta badan kuma baraarugaan wixii dayn lagu leeyahayna iyadana aada buu u adkaynayaa sidii looga bixin lahaa hadduu wasi samaynaya wasi liawlaadihi lqusar carruurtiisa aan qaangaadhin hadduu cid uu ku hadlaynayo ama uu ku wareejinayaa jirtana wuxuu leeyahay ubadkayga intaan qaangaadhin waxaa ka mas-uul noqonaya dhaxalkooda iyo maamulkooda hebel waa rag weeye hawshaas rag baa qaban kara cidduu isleeyaha way ugu xilkasan tahay ama ka eexan mayso waxa uu ku dardaarmi doonaa kayfiyata tajhiis sida loo tabaabushaynayo loo aasayo waxaa la ii aasaya la ii maydhaya la ii kanfaya si waafaqsan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu waxyaabaha qaarkood oo dhaqan oo qalloocani jiro waxaa ha layga daaya kaayaan laygu samayni kaayaan laygu samayni meel gaalaad haddii lagu aasayo halkaa ha laygeeyo islaamka ugu dambeyntii wuxuu kusoo khatimayaa ducada oo ah
shaabadda baryada markaa ilaahay la baraya subxaana wa tacaala waxa uu qofku soo sheegay buu kusoo gebagabaynayaa iyo tawhiiqaasoo caddayn uu ku muujinayo dardaarankani kii hebel inuu yahay ama kii hebelaayo oo ah saxeexiisa iyo shaabadiisa waxaanuu raacinayaa markhaatiyaashana intuu kari karo wuu badinayaa waxaynu aragnay dardaaran qof qoray 10 sano 20 sano ka horoo 10kii uu qorayba ay wada rawaxeen ama dhinteen markaa dad caadiliina buu ku qorayaa oo da-doodu ay yartay hadduu heli karo ilaan dhimashada waa la wada dhimanaya laakiin dadka waaweyni way usii dhowi marka hadduu odayaal miidhan ka dhiga isagii wada raacaan cid markhaati ka noqotay inaan la helin baa laga yaabaa qoraalkiina laga shakiyo geerida waa loo simeeya laakiin dad badan buu markhaati ka dhigayaa uu isleeyahay kuwani malaha ilaahay baa xaggiisa wax ku maqan yihiin cumrigooda waa u cusub yihiin iyadoo taa aanay dhallinyaradu ka faa'iidaysanaynin geeridu ay dib dhacdo dhallinyaronimo daraaddeed marka habka dardaaranka loo qorayaa waa ilaa 6 arrimood buu ku qorayaa ku caddaynayaa diinta adduunya wixii lagu leeyahay dadka u warwarsan yahay iyo inuu markaa kusoo khatimo tawhiiqa warqadiisi loo arkay iyo qoraalkii inuu kalsooni leeyahay idan waxaynu markaa halkaa kusoo gabagabaynaynaa arrimahaasi waxay ka mid yihiin al-isticdaad ila alaakhira wa ilaa yowmi raxiil maalinka aada safrayso siyaabaha lagu diyaargaroobayaabay taasi ka mid tahay marka waa la ishayaae intaan la ina helin horaan isaga diyaargarowno allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaaila baailan warsuqna ijtinaabah allahuma aslix lana diinana aladii huwa cismatu amrina waaslix lana dunyana alatii fiiha macaashuna waaslix lana aakhiratana alatii ilayha macaaduna allahuma agnina bixalaalika can xaraamika wabifadlika canman siwaaka ya arxam araaximiin اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة